السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم وناكسن جنجليال وأنيقو عبد الله علي آذن عبد الله جول وقال كان وحانوغو هاد لدونا الدول الليرة دقيقة كوبان يسو سعدا شركة بحياة بروغرامية مالجلينتا أو أي سيان قفك تريدر كأه طبعا شركتها way fara badan yihiin laakiin waxaan soo qaadanay ugu dambeyn afar kamid ah oo afarta ugu badan oo ay isticmaalaan dadkeenan Soomaalida ah ee noqon lahayd iyo badan caalamkaba afartan waxay qaas u yihiin dabcan forex-ka dabcan kuwa way jiraan oo indasisyada iyo future-ka iyo waxyaabahaas dhan loogu trade gareeyo balse kuwan forex iyo commodities labadaas ay badan leeyihiin dhinacyo badan ayaan ka fiiri doonaa insha Allah haddii aan horay u galo muuqaalka qaybta koowaad aan isbarbardhig u sameyn doono waxay noqon doontaa lacagaha lagu bilaabayo ama lacagta la sii doono qofka marka uu isdiiwaan geliyo lacagta bilowga ah ee la sii doono halkaas ayaan ka bilaabeynaa haddii aan idin fahansiiyo review-ga waxaan ku sameyn doonaa kaliya laba option optionka koowaad haddii uu green noqdo waxay ka dhigan tahay hal dhibcood ayay sidaas ku haystaa company-gaas sidoo kale haddii uu noqdo kalarkan grey-ga ah waxay ka dhigan tahay 0.5 ayuu sidaas ku haystaa kalarka red-ka ah wax dhibca ma lahan waa macnaheeda green-ka iyo grey keliyaan u xisaabin doonaa haddii aan ku bilaabo company-ga koowaad waa True Forex Fund lacagta bilowga ah waa 10,000 ilaa waxay u dhaxaysaa 200 okay waa lacagta initial capital-ka ah waxay u dhaxaysaa 10k ilaa 200 okay shirkadda labaad waa the 5% qaybtan waliba aan ka hadlayna waa qaybta phases-ka iska leh company-yo way kala baxaan company-yada kuwa waxaa jiro phases leh iyo kuwa instant funding leh ana waxaan ula jeedaa kuwa adoo waxba phase ama challenge aad gelin lacagta horay lacag real aad uga trade gareynaysid iyo kuwa ku imtixaanayo oo evaluation ama challenge kugu sameynayo hadda qaybtan aan ka hadlayno waa qaybta phases-ka afartan shirkad aan soo qaadanay dhammaantood way leeyihiin phases-ka ama challenge-yadaas 5% haddii aad ka gudubtid challenge-yadaas marka ugu horeysaba waxaa lagu siinayaa 100k ama 100,000 oo dollar ah akoonka lagu shubayaa طبعا ilaa 4 milyan ayaad heli kartaa waxaa ku xigo FTMO ayadana waxay la mid tahay shirkaddii hore ee True Forex Fund waa 10 ilaa 200k ayay u dhaxaysaa My Forex Fund 5k ilaa 300 okay comparison ugu horeeyay waxa ku guuleystay the 5% comparison keen koowaad waxa ku guuleystay the 5% hal dhibic ayay sidaas ku haysataa My Forex Fund 0.5 oo dhibic sidaas ayay ku haysataa FTMO iyo True Forex Fund waxba dhibic ma lahan waa wareegii koowaad wareegii labaad marka waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa lacagaha la bixinayo marka ugu horeysaba oo qofku uu challenge ama uu galayo phase waxa ugu horeey True Forex Fund 89 euro ama dollar ahaan u dhigno waqti xaadirka la taagan yahay waa 95 dollar iyo 7 senti meelahaas oo kale
waana akoonka 10,000 ay ku jirto markaas 10,000 oo kii akoon ku jirto haddii lagu siinayo waxaad bixinaysaa $95 iyo jajab. The 5% way ka duwan tahay laakiin meeshaan saddexdooda waa ay ka duwan tahay. 85 euro ayaad bixinaysaa 85 euro ayaad bixinaysaa oo u dhiganta $91 iyo bar meelahaas. waa inta challenge-ga kaliya uu socdo. dabcan challengeskiisu waa 3 challenge waan arki doonaa. challenge-ga markaad ku guuleysatid kadib ayaad waxaad bixin doontaa si lagu siiyo akoon ay ku jirto 100k 215 euro oo u dhiganta $231 ayadoo waa laba lacag soo maaha. laakiin ku xisaabtan akoon oo 100k ayaa lagu siinaya kuwan halka ay 10k yihiin. FTMO waxaad bixinaysaa 155 euro oo u dhiganta $166 iyo 6 senti meelahaas dollar ahaan. waxaad helaysaa 10k akoon ah. dabcan 10k-gan waa faceska ama challenge-yadane way ku jirtaa. waxaan ula jeedaa phase 1 10k-gaas ku trade gareynaya, phase 2 sidoo kale hadhowna akoonka oo realka ah isla 10kaas ayaad ku trade gareynaysaa. laakiin 5% waxay uga duwan tahay 100k hore ma lagaa siinayo. markaad bixisid $91 iyo bar waxaa lagu dhiibayaa phase 1 akoon ay ku jirto 25,000. markii aad gaarsiisid targetka phase 2 aad tagaysaa 50k akoon lagu dhiibayaa. targetka markaad gaartid 75k akoon hadan lagu dhiibayaa. intaas dhan wax lacag lagama rabo, bilowga hore un baa bixisay saddexda phase-ba hal mar kaliya ayaad waxaad bixinaysaa $91 bar. laakiin markaa saddexdaas ka soo gudubtid baad waxaad bixinaysaa another $231 taasoo ah akoonka realka ahayd oo 100k akoonkii ahaa lacagtiisaad bixinaysaa markaas. qolada ugu dambaysa waa my forex fund $84 aad bixinaysaa akoonkii 10,000 sidaasaa ku helaysaa. saddexdaa kale way siman yihiin laakiin halka company-ga ka duwan waa 5%. halkaasna dabiicdii labaad ayay sidaas ku haystaan sababtoo ayaga ka wanaagsan. 100k iyo 10,000 iskuma dhow soo maaha. kaalinta labaad waxaa soo galay my forex fund ayadana maxay haysataa 0.5. sidoo kale true forex fund ayadana waxay haystaan 0.5. waxaa halkaas dhinaca qiimaha markii la fiiriyo waxaa ugu liita FTMO soo maaha. exactly. wareegga xiga wareeggan xiga waxaan qiimeyn doonaa shirkadaha iska leh lacagaha tooska ee realka ah in aad isla markii ku bilowdid tradingkaaga oo aadan wax challenge iyo waxyaabahaas dhan aadan waqti iskaga dhumanin. true forex fund ma lahan, FTMO ma lahan steps-kaas. laakiin the 5% in my forex fund labaduba way leeyihiin direct in lagu fangareeyo adoo wax challenge aadan marin. waa ay sii kala fiican yihiin laakiin 5% 6k akoon ay ku jirta ayaad waxaad bixinaysaa $212 bar. halka my forex fund aad bixin doontid akoon ay ku jirto 5k $245. markaan haddana dhibicda saddexaad waxaa sidaas ku qaatay 5%. halka 25 ay halkan ka qaateen my forex fund. wareegga xiga waxaa lagu tartamayaa maximum daily loss oo ah lacagta ugu badan oo aad hal maalin khasaari kartid. true forex fund waa 5% lacagta ugu badan oo lagu ogolyahay hal maalin inaad lumisid. 5% wax limida ma lahan. FTMO iyo my forex fund ayagana waa 5%. sidaas 0.5 dhibcood ay ku haystaan saddexdooda halka the 5% iyadana hal dhibcood ay meesha ka sii qaadatay oo ah dhibicdii afaraad.
maximum over loss waa lacagta ugu badan ee loo ogol yahay inaad lumisid wiyahaanba haddii aad lacagta lumisid akoonka dhan waa laga xiri doonaa true forex fund waa 10%, 5% waa 5%, FTMO waa 10%, forex fund waa 12%. markaana waa halkan ku guuleystay hal dhibic waxaa wata my forex fund, FTMO iyo true forex fund waxay wataan 0.5 point. halka 5% ay tahay mid ugu liidata. wareegga xiga markaan waxaa lagu tartami doonaa minimum trading days. meeshaan haddaan si fiican idinkugu sharaxo si aad ila fahantaan waxa laga wado minimum trading days. tusaale waxaa lagu leeyahay intaasoo maalmood waa inaad trade garaysaa waajib ayay kugu tahay maalin kama baaqan kartid. FTMO iyo forex fund FTMO 10 days waa lagaga baahan 10 days inaad trade qaadatid waajib waay inta challenge ku jirtid. haddaad 9 maalmood qaadatid oo waqtigana kugu dhaco sidaas ayaad ku guuldareysatay. my forex fund 5 maalin ayaa lagaga baahan yahay inaad trade garaysid halka true forex fund iyo 5% aan waxba lagu xisaabinaynin maalmaha trade garaysid ilaa ma hal maalin trade garaysid oo aad faa'iidadii dhammaan lagaga baahan aad ku samaysid waxba lagu xisaabi maayo. halkaana waxaa ku guuleystay labadan oo hal dhibcood qaateen halka my forex fund ay 0.5 dhibcood meesha ka qaadatay FTMO na ay sidaas ku guuldareysatay. dabcan waana sababaha ugu badan oo ay dadku ku neceb yihiin FTMO maalma lagu xisaabiyaa. next round wareegga xiga qaybtan waxaa isbarbardhig ku sameynaynaa sida faa'iidada loo kala qaadanayo. qofka traderka muxuu leeyahay sidoo kale shirkadda ayadana maxay qaadanaysaa. haddii aan ku hormaro true forex fund 80% waxaa iska leh qofka traderka ah halka kambaniga uu leeyahay 20%. 5% 50% ilaa 80%. dabcan waxay ku xirnaa doontaa akoonka cabirkiisa laakiin bilowga 50% ayay kaaga bilaabanaysaa. FTMO 80% ayaad qaadan doontaa. my forex fund ayadana waa midda ugu wacan 75% ilaa 85%. dabcan midda wanaagsan waa ay muuqataa meeshaan waxaa ugu liita 5%. next round risk per trade qodobkaana waa qodob aad u muhiim ah. maxaa lagu ogol yahay halkii trade inaad khatar geliso. dabcan saddexdan 5% ayaa lagu ogol yahay halka 5% 1% lagu ogol yahay. dabcan kuwaas inaad si fudud ku khasaarto ayay rabaan laakiin 5% 1% ayaad risk gelinaysaa khasaarahaagana limitka adiga oo gaarin si tartiib ah ayaad lacag ku samey kartaa. marka meeshaan waa la isku gaadaa. dabcan dadku waxay u maleeyaan meeshuu weyn 5% ayagoo fiirinaya inay 5% uu wacan yahay macnaha in 5% khasaare lagu ogolaado inay fiican tahay laakiin markasta waxaa wacan inaad wax yar riski gelisid gebi ahaanba akoonkaaga. 1% waa meesha ugu wacan. qaybtanna waxaa hogaaminaya weli 5%. next round scaling up meeshaan aad ayay muhiim u tahay. dabcan dadka badan ugu baraarugsana in haddii targetka aad gaartid
waliba meel cayiman akoonkaaga lagu laba jibaari doono. dabcan true forex fund ayada 25% oo faa'iidaha markii aad 3 bilood oo xiriir ah aad gaartid ayaa lagu laba jibaari doonaa. laakiin 5% waqti lagu mahiraayo 5% kaliya mar kasta oo aad faa'iido samaysid waa lagu kordhi doonaa. dabcan la socda shirkadahan programyo badan ayay leeyihiin, ha ku dhex wareerin. qaybta kaliya aan hadda ka hadleyno waa qaybta leh phaseska. 5% programyo kale oo waxay leedahay lacag toos loogu shubanayo, dabcan sidaan hore usoo aragnay. laakiin kuwaas akoonkaaga marka lagu laba jibaarayo waxaa waaye percentage kale leedahay, lacaguhu ay kala duwan yihiin, waxyaabo badan ayaa jiro. laakiin hadda qaybta focus ka saareyno waxaa waaye qaybta leh challenge-yada kadibna akoonkaaga lagu fangareynayo. yaa la isku qaldin. FTMO 25% markaa faa'iido keentid waliba 4 bilood oo xiriir ah, markaas kadib ayaa akoonkaaga scaling up lagugu sameynayaa. by forex fund ayagana 20% haddii aad faa'iido samaysid waa ay ku laba jibaari doonaan. next round qaybtan waa meesha ugu muhiimsan oo lagu kala haraayo. waqtiga lagu ogolyahay phaseskiina ku jirtid iyo faa'iidada laga rabo waqtigaas. true forex fund haddaan ku bilaabo, phase 1ka waa 30 maalmood kaliya. 30kaas maalmood waxaa lagaa rabaa inaad 8% oo profit aad samaysid. phase 2ga waa 60 maalmood, 4% oo profit ayaa lagaa rabaa. 5% phase 1, phase 2, phase 3 saddex phase ayay leedahay, way ka duwan tahay kuwa kale. midkiibana 6% ayaa lagaa rabaa, laakiin waxaa lagu siiyey 1 year 12 month. dabcan aniga hadda u kala qaybiyey 4 bilood, waxa usoo qaatay macnaha waa u kala qaybiyey. laakiin adoo phase 1 dhameenin ayaad waxaad haysataa 1 year. maxaan ula jeedaa meeshaas? kuwan way ku cayimeen phase 1 waa 30 maalmood wax noocaas lagu dhahay, laakiin ayadoo 6 bilood la sii maraya aadan weli wax phase dhameenin ayaa macquul noqon kartaa. it's okay, still janice ku banaan anada 6 bilood haysataa weli. soo ma jeedid? waa meesha ugu muhiimsan dadka ku baraarugsana. as long aad time fiican haysatid, waa as long winningkaagu u dhow yahay. laakiin haddii maalmihii lagu soo koobo faa'iido 10% laga sugayo ama 5% waa wareer. sababtoo suuqan markasta ma fadhiyo, soo maaha. waqtiyo waxaa jiro ay lacaguhu diyaarsan yihiin oo dhaqaaq leeyihiin iyo waqti oo suuqu iska fadhiyo. kuwan marka waxay kugu qasbaya inaad orodid ama markasta aad trade gashid, sababtoo waxay ku siiyeen 30 maalmood kaliya. marka way ugu talagaleen kuwaas in aad ku fail garowdid. waa sababta aan barnaamijkan u sameynayno, aan ugu talagalan dadkan aan u bidnaamino meesha u fiican, aysan walwal iyo murugo iyo degdeg fara badan ay isku dareemaynin, lacagtoodana aysan ku luminaynin. waxa ku xiga waa FTMO 30 maalmood 10% faa'iido laga sugaa. 60 maalmood 5% waa phase 2ga. my forex fund phase 1 iyo phase 2 waxa uu leeyahay phase 1 waa 30 maalmood 8%. phase 2 waa 60 maalmood 5%. markaan analysis aan sameyno, true forex fund marka la isku daro maalmaha waa 90 maalmood, waxaan laga rabaa 10% faa'iido. 5% waa 1 sano, waxaa laga rabaa 18% faa'iido ah. FTMO waa 90 maalmood 5% faa'iido laga rabaa. my forex fund waa 90 maalmood, waxaa laga rabaa 13%. yaa ugu wanaagsan way iska caddahay, banaanka ay weliba taala waa clear. 5%
nagastron qaybtan waa qayb aad u muhiim ah dhinaca macaamiisha sidee loola macaamilaa sidee loo caawiyaa waxyaabahaas dhan TrueForex Fund completely waa ay leeyihiin live chat support waliba si degdeg ah lagu soo jawaabayaa 5% ma lahan wax live chat ah طبعا website-kooda waa uu ku qoran yahay laakiin markaad xogta aad u dirtid email ahaan ayay kugu soo jawaabayaan ma lahan live chat si toos ah lagu soo jawaabayo waliba degdeg ah waa meeshay ku liitaan FTMO waa ay leeyihiin si degdeg ah lagu soo jawaabayaa MyForex Fund live chat waa ay leeyihiin laakiin dhibaatada ka taagan waxaa waaye horumarin badan ayuu u baahan yahay support-ka ayaa yar 50-40 waxaad arkaysaa inaad queue ama fail aad u galaysid oo dadkii ayaa ka tiro bateen sidoo kaleeto dadkii wax caawinaya ayaa ku yar dhankaasna way ku liitaan perfect ugu dambeyn qaybta summary-ga horta markii la fiiriyo yaa ugu dad badan haddaan wax yar idinka dhex galo inta aan fiirin yaa guulaystay yaan u fiican shirkadaha ugu dadka badan waa FTMO iyo MyForex Fund marka laga hadlo dad badnaasho iskuma xirna dadku inay badan yihiin dad badan inay isticmaalaan kambanigan iyo inuu wanaagsan yahay iskuma xirna soo maaha waxaa kusoo xigta 5% waxaa ugu dambeeya TrueForex Fund oo ah midka ugu yar ay dadku isticmaalaan yaa guulaystay markaan u soo laabano DFX Fund celcelis ahaan rate-ka markii lagu qiimeeyo 10 waxa uu helay 5 5% markii lagu qiimeeyo 10 waxa uu helay 8 laba kaliya ka dhiman FTMO markii lagu qiimeeyo 10 waxa uu helay 3.5 MyForex Fund 10 markii lagu qiimeeyo waxa uu helay 5.5 waxaa ugu fiican marka 5% MyForex Fund iyo TrueForex Fund waxaa ugu hooseeya qaybta lowest-ga taagan FTMO waana midka ugu dadka badan dabcan ku dhawaad bishii 3 milyan ku dhawaad dad ah ayaa soo booqda page-kooda MyForex Fund sidoo kale 5% dad 300,000 kor u dhaafaya laakiin milyan ma gaarayaan TrueForex Fund sidoo kaleeto waa adiga 300 ku sii dhow yahay okay laakiin ayagana ma gaarayaan 1 milyan waa labada ugu dadka isticmaalka yar yihiin dabcan ugu dambeyn marka isbarbardhigana sameynaynay waxa uu ahaay mid ka duwan gabi ahaanba siday dadka kale ay u sameeyaan qiimeyn ama ay comparison ugu sameeyaan ee barnaamijyadan ay kasoo diyaariyeen naga waa mid hufan oo aysan jirin company loo xayeysiin ama loo suuq geenayo barnaamij dhammaantoodna waa inoo sameeyeen wax dan aan ka leenahay ma jirto kaliya waxaan u danaynaynaa bulshada naga soo dalbatay ama inaan kaliya waxaan u danaynaynaa bulshadeena oo ah meesha ay wax fiican ka heli karaan ayaan u muujinaynaa ayaan banaanka u keenaynaa isbarbardhigan wuxuu ahaa mid hufan gabi ahaanba oo daacadnimo ku dhisan tahay insha Allah qof walba research gooni gaarkiis waa uu sameey karaa waa uu soo arki karaa gabi ahaanba wax meeshan ku qoran waa wax shirkad walba oo ay page-keeda ama website-keeda ay soo dhigatay anagana kor aan ka qiimeynay aan soo qaadnay dabcan way jiraan kuwa aan si real ah ama si toos ah aan u tijaabinay haddii ahaa lahayd maxaa la yiraahdaa waxyaabaha badan ee bixinayaan features-kooda haddii aad u baahan tihiin insha Allah qofku u baahan intaan inuu hadda uu soo eego
website-yadooda ayaan waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka. weliba qofkii isku diiwaan geliyaa linkayadan aan meeshan soo dhignay waxa uu muujin doonaa qofkaas inuu yahay qof naga socda annaga. hadhowna waxa uu si gaar ah u heli doonaa caawinaad in laga caawiyo wixii uu baahdo su'aalo uu qabo dhan si bilaasha insha Allah looga jawaabo. wax kasta uu tabanayana insha Allah si fudud looga jahal bixiyo. website-ka waxa uu leeyahay qayb loogu talagalay ardadaas. waxaad samaynaysaa waad iska soo diiwaan gelinaysaa website-ka. sidoo kale waxaad caddaynaysaa inaad linkiyada aan meesha hadda soo dhignay mid ka mid ah inaad iska diiwaan gelisay. hadhowna shuruudda laga rabo waaba intaas, wax kale ma laga rabo. recommendation ahaan waxaan idiin siinayaa sidaad hadda aragteen 5%. طبعا kuwa kale haddii aad u baahan tahay waad aadi kartaa, laakiin recommendation markii la dhaho anagoo hadda isla aragnay dhammaan waxyaabihii ay uga fiicneed kuwa kale iyaale dhinacii waqtiga, dhinacii lacagta iyo dhinacii maamulidda lacagtaas oo aadan noqonaynin qof ku guuldaraysta. marka videogan waxaan jeclaan lahaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo. sidoo kale waxaan soo dhignaa week waliba 2 mawduuc oo aan u sameyno codeyn. dabcan weekii hadda waxa uu ahaa mawduucan midkii ugu badnaa oo codeynta loo qaaday ama dadku ay doorteen. marka isku day week kasta codeymaha lasoo dhigayo ama toobikada lasoo dhigayo inaad ka qayb qaadatid si aad ugu dabaqday baahiyada markaas adiga aad qabtid oo aad uga faa'iidaysatid insha Allah. waa idin salaamaya janna galayaal. waxay noo ballanaa videoga xiga. waa inoo kulanti dambe insha Allah. khayr baan idin rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.